dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxa ay dalka dibadiisa u qaaday qaar kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii dhawaan ka dhacay golaha murtida ee madadaalada ee halka lagu weeraray isla markaana mas'uuliyidiisa ay sheegteen ururka Al-Shabaab. dhaawacyada la qaaday ayaa waxa kamid ahaa xildhibaan Mawlid Macaane Maxamuud oo kamid ahaa mudanayaasha baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya isla markaana ku dhaawacmay qaraxaas oo 3 bishan dhacay. wasiirka caafimaadka ee dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdicasiis Sheekh Yuusuf oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyadan lagu soo dabiibi doono magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. wasiirka ayaa waxa uu sheegay dhaawacyadan inay hayeen kuwa ugu cuslaa ee ku dhaawacmay qaraxii 3 bishan ka dhacay golaha murtida ee madadaalada. waxa uu tilmaamay in sidoo kale la qaadi doono wadanka dibadiisana lagu soo dabiibi doono dhaawacyo kale oo kamid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxii golaha murtida ee madadaalada ka dhacay. waxa ugu xumaa laban qof baa ugu xumay. qof wuxuu ahaa Faysal Xaaji Cilmi saaka la qaaday. qofna wuxuu ahaa Mawlid Macaane Maxamuud hadeeraa la qaaday. inta kaleeto gubasho iyo jajab intaba waayeen. waxaan haatan kuwaan ugu soo dedejinay kuwii ugu liitay bay ahaayeen ayaan una muuqan halkaan in wax weyn looga qaban karo. 3 bishan ayaa qarax ay mas'uuliyidiisa ay sheegteen isla markaana lagu weeraray munaasabad lagu maamuusay hal sano guuradii ka soo wareegtay markii dib loo howlgeliyay telefishinka dowladda waxa uu ka dhacay tiyaatarka qaranka waxaana qaraxaas xilliga uu dhacay halkaas ku sugnaa madax ka tirsan dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ugu horeeyay ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali fanaaniin suxufiyiin iyo waliba dad kale oo shacab ahaa. waxaana dadkii waxyeeladu soo gaartay kamid ahaa suxufiyiin badan oo ka howlgalayay magaalada Muqdisho.